Guurso gabadha jeceshahay jacaylku waa dareen madax bannaan oo aan waxba ku tiirsaneen waa shuruud la'aan kuma xirna inta ay la eg tahay hantida uu qof haysto nasiibkiisa bilicdiisa iyo jinsigiisa iyo waxyaabo kale kuma xirna waa shay dabeeluhu wataan oo qalbiyada jira walow iminka nuxurkii laga qaaday oo maanta dadku way uga sahlan tahay in qof lagu yiraahdo waan ku jecelahay iyadoo oo aan arintaasi meel fog gaarsiisaneen lana fahansaneen micnaha dhabta ah haddana waa dareen jira oo si guud loo wada aaminsan yahay cilmi boodhari iyo hodan ayaa tusaale wanaagsan u ah jacaylka Soomaalida dhexdeeda ah iyo mucaashiqiin kale oo badweyntii jacaylka jibaaxay haddaba gabadha aad jeceshahay inaad guursato waa adigoo nolosha ka gaaray hadafkii aad ka lahayd waxa uu qofku helayaa qanaaco iyo niyad wanaag inta noloshiisa ka dhiman uu sahay u qaato ogow sida aan ugu baahannahay inaan caloosha quudinno ayaa qalbiyadeenu u baahan yihiin qanaaco iyo in laga xaqabtiro waxa uu baahan yahay ilaa inta aad ka qancinaysid qalbigu waa oomane oo waa haraadsane u baahan inuu helo qofka uu adduunka ugu jecel yahay حبيبتان جعلاي محاحلي هبين بنات جواي قولي مرة حسوستي حكيني حيسو إداشدي dhagayste ima aaminaysid haddii aan ku iraahdo jacaylku waxa uu ku gaarsiinayaa heer qofka aad jeceshahay aad uga baqdo in aad sariirta la wadaagto marka aad isguursataan adigoo niyada iska leh armay waxyeello soo gaarta jacaylka waa loo waashaa waa loo dhintaa waa loo cugdadoobaa oo ana loo xanuunsadaa laakiin dad yar ayuu heerkaas gaarsiiyaa jacaylka in badanna iyagoo bukaan socod ah ayay noloshoodii iska sii wataan mar haddii ay waayeen qofkii ay jeclaayeen in yar oo ka mid ah ragga ayaa nafhur u sameeya jacaylka taasina waa sir bannaanka taala dumarkuna waxa ay balo ku dhigeen waxba sheegan mayaan jacayl aan lagula qabin miro dhal ma aha guurka ka dambeeya laakiin marka aad guursatid qofka aad jeceshahay iyaduna ku jecel waa halbeega dhadhanka macaan ee noloshu leedahay calafka sidiisaba nasiibka u saano وصرد عاشقه حدو هلو صدكيسي سر مويد عورتيو سقالوت كديريركو سيرها وتكورا صفيي ديرتي inanta aad jeceshahay ee aad guursatay ee aad guri ku wada nooshihiin dhadhanka noloshuna idinka dhaxeeyo waxaad guriga ka bixaysaa iyadoo ilinka taagan oo ku soo eegaysa ilaa aad ka miriqbeesho waxaadna soo hoyanaysaa iyadoo ilinka taagan oo ku bidhaaminaysa kuna sugila raashinkii ay karisay afka maysan saareen oo adiga ayay kula sugaysaa xitaa marka aad raashinka cunaysid gacantaada kuguma aamin qabto waxa ay rabtaa in gacanteeda cilaanka saaran ay kugu siiso waxaana ay dadaal kasta u galaysaa in ay qiyaasto waxa niyadaada ku jira ee aad doonaysid ee aadan u sheegin waxa ay ku fikirtaa in niyadaada ay ka baabi'iso buuqii maanta oo dhan aad ku dhex jirtay ee suuqa iyadoo ku dadaalaysa in qanaaco ay ku gaarsiiso wax walibana ay ku hilmaansiiso way muuqdaki an magi kama dheeremehan ima moge madaxisa wixinu mutaye macaan badno wixin ku maraya mawla oge marle maqsuudiga yeele macaan badnoobo wixin ku maraya mawla oge ku muujiye marle maqsuudiga yeele markaad iga maqnaatide marka aad hurdayso iska daa in lagaa kiciye waxa ay dadka ugu nacab tahay mid dhawaq hadda waa dhawaq
aad u yar xitaa ka dhawaajiya xitaa mukulaasha guriga joogtaa kuma dhacdo in ay dhawaaqdo oo ay hurdada ka toosiso tartanka iyo orodka kilkilyeenta maada iyo qosalka waxaan filayaa kuwiina caloosha jilicsan in ilmadu ay soo dhaaftay ilme mise murugo laakiin waxaan kuu sheegayaa guur farxad la'aan ah uu yahay geed miro la'aan ah waad abuuri kartaa farxad waana waxa ugu sahlan wiilyahow ee aad gabadha aad jeceshahay ka kasban karto maadaama ay gurigaagii joogto dhagayste gaar ahaan ragga ayaan la hadlayaa ma garanaysaa qofka adduunka ugu baqiilsan waa calaamad weydiimo ay kor saaran tahay hee meel kale ha ka raadin waa midka gurigiisa farxadda ka baqayla marka uu bannaanka marayana afka kala haya oo maanta oo dhan qoslaya farxaddu sida macdinta dhulka ay ugu aasan tahay oo ay ugu baahan tahay in laga soo fogo sidaas oo kale ayaa qulubta bini'aadamka gaar ahaan dumarka loo baahan yahay in looga soo fogo dumarkuna waxa ay markasta jacayl dabiici ah u hayaan raggooda meeqa jeer ayaa shaqada ka soo dhuumatay oo aad xaafadda u soo carartay si aad xaaskaaga waqti ula qaadato imise jeer ayaad soo fasax qaadatay imise jeer ayaad gurigii timid adigoo gacanta dhabarka kuugu qarsan tahay kadibna aad xaaskaaga uga naxsatay ubax guduudan faraanti ama shay kale oo aad og tahay in ay gacalisadaadu jeceshahay imise jeer ayaad ku tiri cuntada aad inoo samaysay gacaliso aad bay u macaan tahay alla gacaliso gacantaadu macaana allow ha iga kaa dheereen qalbi maanta aad ayaad u nuuraysaa waadna fadhaxsan tahay mise og tahay wiilyahow qiimaha dumarka qalbiga jilcan ee masaakiinta ah ay ugu fadhido weedhahaas macaan waxa ay ka helayaan kalsooni farxad iyo in ay ku sii jeclaadaan haddaba wiilyahow haddii intaas aan soo sheegay oo dhan aanan noloshaada laga helin labada dhinac kuma doodi kartid inaad guursatay qofkii aad jeclayd sidoo kale waxaan doonayaa in qormadani aan uga hadlo dood ku saabsan jaceylka ma guurka hortiisa ah mise waa guurka kadib waxaan filayaa inaad ila waafaqsan tihiin dhagaystayaal wiil iyo gabarba in jacaylka guurka ka horeeya uu yahay boggiisa ugu horeeya oo keliya la akhriyay kan guurka kadibna uu yahay buuggii oo aad u gashay gudaha oo aakhirkiisii aadba akhrisatay nolosha macaanteeda waxaad gelaysaa marka aad guursatid tii aad dunida ugu jecleed rabbina kuugu beero galgacayl baarinimo qosol farxad adiguna aad sidaas oo kale noqoto maskaxdaada hal mar u dir weydiimooyinkan oo ah gabadha aad jeceshahay markaad guursato iyo inanta aadan garanayn ee lagugu daro sida aad farxad ku dareemi karto ama halka aad sheeko ka bilaabi lahayd habeenka aqalgalka ah kadibna dib u eeg jawaabta ay niyadaada ku siisay labada qof midda nolosha kumac waa su'aal kuu keligaaye jawaabta adiga isisi anigu waa Cabaas Xuseen Muuse nabade